هيبة الوحات ولاداي دلكاغا هويو هيبة الوحات ولاداي دلكاغا هويو وانا لما هراني انا لي وحبو قبو وانا لما هراني انا لي وحبو قبو سلام كدب runtii saakay farxad weyn bay noo tahay inaan halka ku qaabilno 13 dhalinyaro ah oo muddo badan ku xirra xabsiyada dalka Cumaan oo dawladda Puntland dadaal badan u gashay sidii wiilashaas loo soo deyn lahaa ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen ma hadda waxa iska leh shacabka reer Puntland guud ahaan iyo madaxweynahooda iyo golaha wasiirada oo runtii dadaal badan ku bixiyay waxa weeye dawladda Puntland waxay mar walba u taagan tahay inay shacabkeeda u damqato meel kasta ay joogaan iyo ma garanaysaa meel kasta ay ku xiran yihiin iyo dhib kasta oo haysa inay la qaybsato runtii aad baan idin soo dhaweynaynaa dalkiinni baad timaadeen insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad la qabsan doontaan xaaladda dalka oo muddo badan ka maqnaydeen waxaan kaleeto oo rabaa inaan halkan ka sheego inaan aad uga xunnahay wixii dhibaato 4 bilood oo la soo dhaafay idinku dhacay idinku hawshiin xilli hore dhamaatay arrintaas oo runtii idinkaga timid dad mas'uuliyiin sheeganaya oo Cumaan ku sugan oo ugu horeeya safiirka dalka u jooga Soomaaliya aad iyo aad baan uga xunnahay in dad Soomaaliyeed oo jeel ku jira afduub loo haysto oo loo haysto in la yiraahdo waxaanu ka raadinaynaa ma garanaysaa commission ama waxyaabo aan macno lahayn baan ka raadinaynaa runtii waa wax aad looga naxo weey arrin la qaadan karana maaha hadda waxay la tahay kullay waa dhibaato kullay qof Soomaaliyeed idinkaga timi ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna way arkaan tacadiga 4 bilood idinku dhacay oo afduubka leedin haystay laakiin alxamdulillah dal iyo dad baa leedihiin dawlad baa leedihiin reer Puntland baa tihiin jaaliyadda Soomaaliyeed Cumaan ku sugan aad baan ugu mahadcelinaynaa ka qayb qaadashadii ay ka qayb qaateen inaad meesha ka soo baxdaan mahadcelinta kadib waxaan rabaa inaan runtii dalkeedii ku soo dhaweyno magaaladiinni baad timaadeen beledkiinni baad timaadeen hadda waa u jeeda idinkoo maarta sujuudaya farxad baan maanta wada la qaybsanaynaa soo dhawaadaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi waan ku faraxsanahay maanta 10 sano iyo ka badan inaad dib ugu soo noqotaan magaalada Boosaaso oo magaaladiinni ah aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku hadlayo magaca shacabka reer Boosaaso inay ku soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala dhibaatooyinkii aad soo marteen soo degidda aad soo degtaan inaad ku ilowdeen haddii Allah wadayno waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani dadaalkii uu ka geystay iyo xiriirkii iyo in xorriyadooda ay dib u helaan dhalinyaradan Soomaaliyeed ee reer Puntland baan uga mahadcelinaynaa isaga iyo xukuumaddiisaba waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in wixii ka dambeeya inuu isu nimaadno maadaama aad 10 sano ka maqnaydeen dalka gaab badan baa dhacay wax badan baa isbedelay wali waxa laga yaabaa maamul goboleedka Puntland inaad soo mareysaan laakiin dawladda Puntland bay gadaashin noqotay waxaan rajaynaynaa marka insha Allah tacaala in qorshe la inii sameeyo haddii Allah wadaleeyno hadduu shaqo abuur noqon lahaa hadduu jihayn noqon lahaa marka insha Allah tacaala arintayadu soo dhaweyn kaliya maaha waxaanu qabnaa dardaaran oo nagala dardaarmay madaxweynaha dawladda Puntland in la inii soo dhaweeyo in la inii sameeyo shaqo abuur sida u dhaqsaha badan sida wax la inii ku heli karo ilaa inta la qabsanaysaan magaalada iyo jawigeeda mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada magaaladiinni gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala markaan nasataan oo kala degtaan bay noo tahay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh mahadda ugu horeysa ilaahay baa leh oo meeshaan ku kulmiyay dibna isugu soo keen celiye ininkoo nabada ilaahay baa iska leh mahadda labaad madaxweynaha dawladda Puntland baa iska leh iyo raggii la shaqeeyay ininka ka warramay afaasha iyo sida xaalaha su'aalaha naga tiraahdeen iyo jawaabta bixiseen markaan qiimeeyno wadaniyada qofka dareema waxa ugu horeeya qofka maxbuuska ama daluusan lahayn ku xiran ama waaya gargaarka dalkiisa iyo dadkiisa ama dawladnimada waxa lagu dareemaa qofkii dal kale lagu xiro oo ku xiran oo u baahda caawinaadda dawladnimada saaka intayada
ama dawladda ha ahaato madaxweynaha iyo raggii ka shaqeeya ma raggayaga halkan taagan iyo shacab weynaha hadda in dhegaysanaya dal iyo dawladnimo waxay tahay ininkaa naga badiya saaka sababtaa waxaad dareensan tihiin indhihiinna ilmaa taalla sida aad waddaniyad u tihiin waxay ka turjumaysaa rabitaankiinna qalbaddiinna markaan ka qaybayno waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin ilaahay nabad inuu ku keenay kuwa kalena insha allah nabad bay ku imanayaan ogaada tii laynii sameeyey iyo juhdigii laynu ku bixiyey iyagana waa lagu bixinayaa dawladda puntland waxay awoodi doontaa inay qof walba oo reer puntland meel ku xiran yahay ay tallaabo ka qaado madaxweynaha dawladda puntland sida uu sheegay guddoomiyaashu ama ininku waa sheegteen ala xiriirteen anuu shirar badan aan fadhiyay waxa laga hadlayay sidii maxaabiista ku xiran oo puntland ka maqan ay dib ugu soo noqon lahayd taa daliil waxa waa ininka ugu horeeya waxaan kaloo in leeyahay waxaa soo marteen iyo jawaabtii kale oo aad siiseen dad badan oo meelaha jooga inay facebookyada wax ku qoraan baa laga yaabaa laakiin ininku xaqiiqda ogti puntland dadkeedu inay iyada u baahan tahay inay iyadu qareen u noqon doonto ininkaa daliil u ah waxaan idin sheegayaa annagu gobol ahaan iyo wasiiradiina waa joogaan ma noqonaysaan niman intay dalkii iska soo galeen iska socday waxaad ka hadasheen iyo baahidaa ka hadasheen iyo meesha loo xuskan lahaa dib baan u fadhiisanaynaa jawaab baan helaysaan caafimaadkiinna noloshiinna dambe saa u deganaan lahaydeen kulliba ma noqonayso inaad la joogtaan qalbadiina waxaa gelisaan sidii hawsha laydinka soo maray haddana weli waa hogadii hawl kama daalay weli gacanta laydinku haynaya haddii alla aad iyo aad baa u mahadsantihiin qalbadiina waxaan ka turjumaynaa waddaniyadda inay haysa iyo daljacayl laakiin ummadduna inay wada qaadataa rabaa qof waliba waxa leeyahay nin jirkii la hayo jiriid kama qoslaaliye ninuu xiran yahay raggiisii ama ay 10 sano xiraayeen qofna ma qaadanayo isagu inuu iska socdo meeska joogo qofna ma qaadanayo haddaan nahay ciidamada waxaan fari doonaa qof kasta oo la keeno inaan si dhow ugu adeegno gobolka bari ciidamada jooga dhammaantood waxayna ku adeegi doonaan sida ugu dhow oo walaalnimada ah taani yadina gashada aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddana wasiirkan kusoo dhaweynay ilaah baa mahad leh inaan saaka halkan kusoo dhaweyno magaalada Boosaaso 13 dhalinyaro ah oo muddo aad u dheer ku xirnaa xabsiyada dalka Cumaan mahadda koowaad waxa iskale Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda Puntland juhdi adag ku bixiyay sidii dhalinyaradaas ay ku iman lahaayeen dalkooda iyagoo nabada waxa kaloo mahad leh jaaliyadda Cumaan ee reer Puntland oo ugu horeeyay jaamaca Lebcir oo isaguna dadaal aad u dheer sida aad sheegteen ku bixiyay in xabsiyada aad ka soo baxdaan marka inta ka tago dhibaato aad fara badan baad ka sheekayseen waxa aad wax looga naxo ah in shakhsiyaad mas'uuliyiin sheeganaya inay dawladda Soomaaliyeed oo central government-ka ka tirsan yihiin oo safiirka aad ku sheegteen magafe ugu horeeyo inay madax furasho idin haystaan muddo 4 bilood ah waxaan ognahay in madaxweynuhu uu kireeyay dawlad diyaarad la idinku soo qaado Puntland la idinku keeno lacagteedii la bixiyay ay hor istaageen safiirka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waa wax aad looga naxo in arrintaas ay ku kacdo dawladdii Soomaaliya waxa aad mahad Ilaahay ah inaad nabad ku timaadaan dhulkiina waa idin soo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxa la idinku haynayaa gacanta si allaale sidii aad baahidiina aan wax uga qaban lahayna waa ku dadaalaynaa soo dhawaada mar koowaad soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad assalaamu calaykum shacabka Puntland mas'uuliyiinta madaxweynaha wasiirada golaha wasiirada gaar ahaan ciidanka qalabka sida dhammaan qof kasta oo reer Puntland meel kasta oo caalamka ka jooga waa salaamaya waxaan uga mahad celinayaa guud ahaan يعني وحي ay dhibaatadii nahaysatay oo ay nala qaybsadeen iyaga iyo ganacsato reer Puntland iyo jaaliyada Puntland oo joogta Cumaan waxaanu ahayn anagu niman maxaabiis in muddo ah laga gaaro 10 sano iyo wax ka badan waqtigii xukunka iyagu noo dhamaaday oo wadankii aanu ku xirayn oo xukunkii nooga dhamaaday waxa xilkayagii la wareegay mas'uuliyiin isku sheegaysa in dawladda Soomaaliya matalaan nimankaasi waxay xilkayagii waxayna geeyeen jeel maxbuus iyaga u gaar ah jeel maxbuuskaas waxaan ugu xirayn madax furasho halka waxaanu qayladaan samaynay inaanu soo wacno Puntland madaxweynaha Puntland wasiirada Puntland hatta macnaha barasaabka gobolka duqa magaalada dadkii aanu la soo xiriiray bay kamid ahaayeen oo aanu gacanna ka geysto in yani gargaar aadanimo loo sameeyo
arrintaa waa ku guulaysanay mahadi ha ka gaarta alla aad bayna noogu dadaaleen nin waddankaas ku sugan oo suldaan Soomaaliyeed ah kana qiimo badan kun safiir oo waddanka la geeyo la yiraahdo Jaamac Ali Bicir iyo rag uu ka mid yahay aad buu uga qayb qaateen hawsha inaanu jeel ka soo baxno annagoo aan wax dukumiintiya naloo ogolaan dukumiintiga iyagii lacag baa lagu xiray baasaboorada iyagii lacag baa lagu xiray go'hoomka iyagii lacag baa lagu xiray ninkaasi awood uu isagu leeyahay iyo warqad mahadi ha ka gaadhay madaxweynaha Puntland uu soo qoray baanu jeelka uga soo baxnay inta waxaanu ku sii dareynaa madaxweynaha Puntland wuxuu ka qaatay qayb libax soo deynteeda dawladda dadka ay meesha geysatay oo magacyaalka ah waxay iyagu noo haysteen anaga madax furash madaxweynuhu wuxuu bixiyay diyaarad lacagteed in annaga nala ku soo qaado oo nala ku keeno waddanka iyo shacab reer Puntland oo aad u tabaalaysan shacabkii wali waxay ku xaniban yihiin Cumaan sabab awgood yani dana gaar oo ay iyagu leeyihiin oo aysan ogolayn diyaarad aada Puntland oo fariisata inta waxaan raacinayaa dadkii waxaan uga nimin dalkii dhalinyaro reer Puntland oo xukun badan ku xukuman ugu yaraan 25 sano oo aan dad shacabi ama jaaliyadu ay ka awood badan tahay inay wax u qabtaan waxaanu madaxdiina dhammaan inta meesha nala joogtay inta noo maqan ilaa madaxweynaha idinka codsanaynaa inaad gargaar aadanimo u samaysaan oo aad isku daydaan bal inaad yani si kasta aad u marteen yani waxa weeye anaga maanta xorriyad waad ku mahadsantihiin soo dhaweynta waa idinka mahadcelinaynaa dhammaantiin waxaanu aad u danaynaynaa in nimanka gargaar bini aadanimo loo sameeyo oo xusid mudan shabaabkaas ugu yaraan 40 qof ka badan waxaanu danaynaynaa in si dhaqso leh wax loogu qabto oo loogu gargaaro oo gargaar bini aadanimo loo sameeyo dawladda ku meel gaarka ah oo Soomaaliyeed shakhsiyan anigu wax badan ka faalaynay yani laakiinse waxaan mahad u celinayaa guud ahaan dawladda Puntland baan mahad u celinayaa shakhsiyan waayo 10 sano xiraa waxaana lahayd awoodda aqlabiyadda ah iyada waxaana ugu maanaan xisaabsanay hase yeeshee kuba sii dheeraan maayo intaasan iyada uga gudbayaa waxaanu iyada laftigeeda ka codsanaynaa hadday dad Soomaaliyeed yihiin dadkaas Soomaalida oo meesha ku tabaalaysan oo calanka Soomaaliyeed hoos jooga oo la isugu tagay inay wax u qabtaan baanu ka codsanaynaa hadday yani dad Soomaaliyeed yihiin oo damiir Soomaaliyeed leeyihiin waxaanu kala codsanaynaa shacabka ku nool waddanka Cumaan khusuusan bilaadka Cumaan oo Soomaalida ah oo midabta koorka iyo sida xun loola dhaqmo inay iska cayriyaan safiirku sheeg safiir ma waa magafe inay iska cayriyaan inuu iyagu aqlabiyad sameeyaan inuu yiraahdaan naga tag 5 qof baa meesha ku nool adaacada ka hadlaan populationka wuxuu sheegaan wacyigelin sameeyaan oo yiraahdaan in naga tag yani oo iska cayriyaan laanu maato iyo dumar iyo caruur iyo shiyaab dad dhakhtar loo geeyay baa ku xaniban meesha oo isu socodkii Puntland wuu diiday in dadka wax loo qabto wuu diiday warqad caafimaad ma bixiyo waxba ma ogola sideedaba marka waxaan soo gabagabeynaya ku dheeraan maayo madaxda waxaan ka codsanayaa annagu dad aad u tabaalaysan baan nahay 10 sano oo soo xirayn gudoomiyaha gobolka maayarka yani duqa magaalada dhammaan saraakiisha meesha taagan hortooda toban waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada in la gacan qabto waa dhalinyaro aad u tabaalaysan qaarkood hadda maba awoodi karaan meel uu jahay u dhaqaaqaanba male wuu lumay future-koodii dadkoodii ehelkoodii qaaran xataa cid ay caawa aadan jirin baa nagu jira oo nala socda xaqiiqa marka waxaan rabaa in wax naloo qabto oo garabka nala qabto xorriyaddu waa wax aad u fiican laakiin si wax naloo ku daro baanu danaynaynaayo yani waan mahadsantihiin dhammaantiin warka dhammaantiis waxaa soo koobay Axmed Caraale waxaan ku darayaa intaas waxaa jooga Cumaan magafe nin la yiraahdo oo loogu magac baxshay safiirka Soomaaliya magafe wuxuu haystay annaga 4 bilood annagoo 13 nin oo Soomaaliya oo u dhashay maamul goboleedka Puntland ka soo jeeda dhamaatood ninkaas wuxuu haystay 4 bilood muddo ah wuxuu haystay madax furasho lacageed wuxuu noo diiday go'hoomyadii aan uga bixin lahayn dalka wuxuu noo diiday diyaaradihii ay noogu gurmadeen shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland iyo madaxweynaha Puntland iyo saraakiisha Puntland iyo boqorka jooga dalka Cumaan sharafta leh Jaamac Ali Bicir ninkaasi magafaha waxaan ka codsanaynaa waxaan nahay shacab Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ninkaasi waa magafe wuxuu aad wax ugu dhimayaa sharafta Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya iyo haybadii iyo gobonimada Soomaaliya lahayd buu aad ninkaas cagtooseed u gashay lana wax kasta wuxuu dhaafsaday inuu wuxuu dhaafsaday
shilmo waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya meel walba ay ku nool yihiin ismada Soomaaliya madaxda Soomaaliya dadka sharafta leh Soomaaliya ganacsatada Soomaaliya in laga qabto magafaha fadhiya Cumaan dadka iyo shacabka waxa hadda Cumaan ku xayiran 221 qof inay Soomaaliya dad ah oo u dhashay Puntland oo ah caruuro iyo dumar baa ku xayiran asaga ayaa cagta saaray oo diiday inay ka baxaan dalka lacagtoodii asaga baa qaatay oo gacanta ku dhigay go'aamiyada asaga gacanta ku dhigay intaas dabadeed sabab anagu aan leenahay awgeed oo raadinayo shilimaad lacageed ayuu u rugaateeyay dadka shacabka ee dumarka iyo gabdhaha iyo caruurta masaakiinta ah oo doonaya ka cararaya cudurrada wadanka ka dhacay oo doonaya inay dalkoodii iyo dadkoodii haddii ay aadaan ayuu u rugaateeyay sabab anagu aan leenahay awgeed inuu shilin lacageed dhaafsado iyo wax anagu aan garan karin ninkaasi waa magafe annagu wuxuu nala joogay muddo ah sanadii 8 bilood maan u maleeyay inuu noolaa sanadii 8 bilood wuxuu soo marsiyay dhibaato la koobi karin aad iyo aad loo koobi karin dhibaatooyinkaas waxa kamid ah oo hadda meesha ka magacaabayaa markuu nala joogay 6 bilood baan waxaanu ka codsanay inuu noo yimaado oo noo yimaado soo booqdo oo aanu ka hadalno daruufana haysta ay ka mid yihiin caafimaad darro ay ka mid tahay daryeel xumo ay ka mid tahay sabab tiro badan oo aad iyo aad xabsiga nagu haystay markaanu ka daba ka wareegnay muddo bila ayuu maalintii dambe noo yimid asoo wata 4 nin oo waxay yihiin caraba oo ku hadlaya luqadda Cumaaniga iyo gabar qaawan oo haafaf gashan wuxuu nagu khasbay markii uu meesha asugu nimid oo aan ku hadlo Soomaaliga inaanu ku hadlo luqadda Carabiga waxa ku hadashaan luqadda Carabiga anagu runtii ma saamaxay inaan ku hadlo luqadda Carabiga sababtoo ah daruuf ayaanu ka hadlaynay xanuun baanu qabnay aan la koobi karin rag baa dhig ka socday kuwa istaagi karin kuwa xanuun ka soo dhaceen oo haddii la kuuriyay xariyaha waxa ugu jiray kiish ugu jireen wuxuu nagu khasbay oo sanka naga gashay inaanu ku hadlo luqadda Carabiga waxaanu ku niri safir anagu kuma hadli karin luqadda Carabiga waxaan rabnaa inaanu ka hadlo daruufan haysta oo dhibaato wuxuu yiri waxa ku xirantiin Cumaan luqadda Carabiga lagu hadlo inaad ku hadasho luqadda Carabiga waxaanu ka codsanay waxaan rabnaa inaanu ka hadlo daruuf dhibaato oo haysta caafimaad darro baahi dil nal ku dirjiro jeelka dhibaatooyin badan oo haysta sidaas awgeed waxaan rabnaa inaanu ka hadlo luqadda Soomaaliga oo aad naga warbixisid dalkii waan naga diiday wuxuu nagu khasbay inaanu ka hadalno luqadda Carabiga asoo aan waxba noo qaban oo waxba haba yaraateena yeelin oo waxba aan noo qaban ayuu naga tagay dhibaato tirada baa ninkaas naga soo martay waxa kale naga soo maray ninkii hore meesha si jooga safiirka ahaa nin safiir wanaagsan buu ahaa waxyaalo badan uu noo qabtay waxa kamid wuxuu noo qabtay in la soo booqdaan jaayada Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo ku nool Cumaan ganacsatada oo na taakuleeyaan ayuu noo sameeyay safiir markuu yimid ninka la yiraahdo magafe safiirku ma sheegi karee wuxuu sameeyay wuxuu qof Allah iyo qof u tagayo aadahaya waa inuu baxshaa lacag 10 riyaal oo canshuura rubaantii ma aan heli karo 10 riyaal canshuura waxaan aad laga bixin jirnay soo booqo jiray Soomaaliyeed oo ka yimaada 1 kiiloomitir waxaan ku xirnay caasimadda Masqad ayaguna waxay ka imaan jireen Salala sidii Soomaalidu ogtaaba wuxuu ku khasbay qofkaas noo imaanay ninkaas Soomaaliga noo imaanaya inuu baxsho lacag 10 riyaal oo waxay ka koobantay aan garan karin waxay taana sheekin dhalinyarada Soomaalida oo noo imaan jiray waan hor istaagay sida jaayada Soomaaliya oo soo booqan jirtay waan hor istaagay rakaatu naga saaray wax walba rakaatu naga saaray ninkaasi dhibaato aan la koobi karin ayuu soo marsiiyay waxaan ka codsanaynaa waxaanu shacab Soomaaliyeed oo u dhashay Puntland maamul goboleedka Puntland ka soo jeeda ninkaas in laga qabto dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya dhibaato ku haysta shacabka Soomaaliya dhibaato ku haya rumaantina waa kala deeyaa labadooda xiriirkooda haddii ninkaas dalka laga qaban أولاً أحب أن أشكر إخواني المسؤولين وأهالينا كانوا معنا واقفين قبل يومين وآسف شديد البحر كان فيه الرياح تأخرنا وأشكركم على هذه التحمل وعلى هذه انتظار ثانياً أريد أن أشكر رئيس البتلان أريد أن أشكر شكرا كثيرا وثانيا أريد أن أشكر أخي جامع علي بعر وهو شيخ من الشيوخ سلطنة العمان هذا الشيخ له فضل من هذا الإفراج وأريد أن أشكر شكرا كثيرا ثالثا أريد أن أشكر سلطنة عمان كانت يعني أهل عمان كانوا ناس طيبين معاملتهم كانت جيدة
السفير كلامه واضح. السفير كلامه واضح. أنا لا أريد أن ألوم السفير، لكني يعني إجباريا ألوم، لأني رأيت أفعاله سيئة جيدا. أول مرة لما قابلنا كانت معه حرمة وهو سفير الصومال عارية. قلنا يا سفير أنت ما حصلت غير هذه الحرمة عارية؟ بالله عليكم أنت إنسان مسؤول، إنسان مسؤول، أنت إنسان مسؤول. سفير يعني سفير مرتبة الرئيس. أيوة سفير يعني ما شيء بسيط. كانت معه حرمة عارية. أيوة بهذا السفير يعني أنا ألومه بصراحة، أنا ألوم شديد. وأشكر السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وأشكر كذلك الشعب العمان، وأشكر المسؤولين اللي متواجدين معنا كلكم، والسلام عليكم.